الحمد لله حق حمده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه أما بعد. معاشر الأحبة آياتك الدردارة الذي توانك هابان كهد لإني سورة الأنعام آخر كذا حق إلهي إلا عبد لو شريك يرين يحق والدك وإحسان الله السماية وأن العاقل قلنا قم ما صومرنا سواش مرة الوحيت ماذا حق والدكم بالله الله ياي ولدك يلمه حقوق ملهمية نعم حقوق بإليه ولذلك الدردار انك الصدحات حق أولاده كهضيا هدي والدك حق يا شيء اسنا حق بالله المو حقوق بيلينا دي الله ضيعه ذنبك وغفلا أظن صلاة ضيعن ونصوت ضيعن وقرآن أخرينيا وصلاة الليل أتاغن ذنب النار لغو قالك وغفلا هداد المه ضيعه كفام المرد إثما ذنب النار لغو قال وحاك وغفلا قفك وحكلوا ذنبي هدادا سمين لا شرك ولا معصية ولا ذنبي كلادا سمين واجب ماذا ضيعن حاران ماذا عنن وحكلوا ذنبي ماذا سمين كليا علمه حقوق ذودي واجب كودي بعد ضيعدي ذنب النار أتكو قاشكو غفلا هلك waxaad ka ogaatay maaha masaladu aniga xaq leh masaladu xaq sax xaq baad leedahay waalid hadaata laakiin adina xaq baa lagu leeyahay xaqi lagu lahaa hadaad gudato waxa la rajeeyaa xaqi Allah inaad hesho ولذلك عمر رضي الله عنه وارضاه baanin baa u soo dacwooday bay kutubta aathartu wariyeen wuxuu wiilkaygii baa caaqib u noqday waxna igama maqlo markaasuu u yar markuu soo fariistay buu u luqaatay wuxuu wari aabbaha ma xaq ugu noqotay wuxuu u kaariyaa amir almuuminiin aabba xaq ma leeyahay ha ilmu xaq ma leeyahay iyagu ma xaq la'aan baa markaa ma xaq bay leeyahay wuxuu yiri maxay yahay xaq ay arrintu leeyahay xuquuqdii sharcigu sheegay buu tiriyay Umar radiyallahu anhu oo qaybi ka horeysa ilmahan dhalashadiisa aabiyo hooyada xaq baa lagu leeyahay waxaan horta aad beereysay dadku warshaday dhisaan mashaariic beerana way sameeyaan mashaariic ganacsina waa sameeysaa si uu miro fiican u yeesho si fiican baad mashruuca marka hore u daraasaysaa si fiicanna waad u maalgelisaa hadduu dhismo yahay injineeradii baad u yeedhaa hadday beertahay kuwii beerta yaqiinay baa loo yeeraa hadduu caafimaad isbitaallo la dhisay kuwii dhakhaatiir baa loo yeeraa mashruucii dhinacyo badan baa laga eegaa maxaa la rabaa miro iyo wax fiican inuu soo saaro warshadii waa la dhisaa sharciyaa loo sameeyaa mishiinada la soo gadayaa la iska fiiriyaa si si fiican wax ugu samayso waxaa laga yaabaa bac inay samaynayso waxaa laga yaabaa tiishka isaga tare inay samaynayso markii la ilmo la dhalayaay waxaa la asaasayaa mashruuc dad soo saara kan dan lagama leh way marka haddaad warshadii wax qalab feega soo gadato oo mid faalsa geliso beertiina aad dhulkii sun ku abuurto dhulkaad beerta u faleysayna aad sun ku daadiso warshadiina aad geliso sun gelisa dawada soo saaraysay ama aadan damba ka gelin maxaad fishaa inuu mashruuca soo saaro gurigii markaad dhisaysay dheeraayaad mustaqbalka ka rabtay guri 20 dabaqa haddaad bir 5 dabaqa iyo 10 dabaqa geliso inuu gadaal ka soo dumo waxaad fiirso Soomaa haddaad dhex taagantahay ma ag taagantahay intuu kugu dhacay inuu ku dilo Soomaa waxaad filayso ama ummadii ku baaba'day wax fasaadiyo reerka markii la dhisay sharcigu wuxuu amray rag iyo dumarba hooyada noqon doonta hooyanimo isu diyaarinaysa iyo ninkii aabbanimo isu diyaarinayaba waa lala hadlo waxa la yiri cidda la wadaagaysay warshadan wax soo saarkeeda in dhaxmaray iyo diin iyo dabeecad iska ilaali waxa la rabaa dhagaxa aad mashruucan dhigaysa inaad ilaaliso haddaad hooyo noqonaysana ilmahan yaa aabbo noqonaya iska fiiri haddaad aabbo noqonaysana yaa hooyo noqonaya iska eg haddaad milihii meel xun ka beerto oo beertii meel carraseela aad geyso oo hadda wayba soo bixi weyda amiyadoo gubatay ay soo baxdo diyaada sababta iska la dhul fiican maada dooran baa lagu dhihi tanna sidoo kale way waxa la yiri xaq ilmaha waxa kamida hooyadii iyo aabihii in la iska eego hooyaduna aabihiina eegtiya aabbo u noqonaya Soomaalida hore waxay dhihi jireen ilmaha marbu hiila kaaga baahan yahay bay rag u dhihi jireen waa goorma marka hooyadii guursanaysa dhahan kaasoo hiila kaaga baahan oo heeliso oo mustaqbalka soo socday leeyahay nin hiila u baahan oo garab taagan tahay buu noqon haddaad hooyadii ka fiiriso hadalka waa loo wada yiri hooyaduna ilmaheeda hiil wuxuu uga baahan yahay markay guursanayso waa marka koobaad
marka la guursado la isdoorto gogosha markii la yimid waxa la shaydaanka iska naara yuusan ilmaha idin la dhalin xaqa ilmaha ka mid tahay ilma shaydaan kula dhalay ilmahan shaydaan kula dhalin waxaad ka sugtahay isku mid ba aakhiriya dun khayrkaad ka sugayso ilma shaydaan wax ka dhalay muxuu yahay washaarikum fil amwali wal awladi wa haddaan shaydaankii la iska naarin uu kula dhali raashin shaydaan kula cunay dheh iyo sharaab shaydaan kula cabay iyo ilma shaydaan wax ka dhalay waxaa la leeyahay carruurtan afaariid iyo shayaadiinta maxaa ka wada dhigay carruur xaqoodii lagu tuntay wey shaydaankii ilaahay laga magangelin lahaa warshadaha markaad dhistaan silig iyo korontaa lagu wareejino waa la ilaalinayaa intaa la dhisayana waardiyaa saaran kan isaga waardiyihiisu wuxuu noqday dikri la akhriyo ininka mid hadduu halmaamo ka kale xasuusiyaa la rabaa waa xaqa labaad ay carruurtu leeyihiin weli maanay dhalan markay dhashaan magac fiican bay xaq u leeyihiin tarbiye iyo tacliim fiican bay xaq u leeyihiin nafaqo iyo biil iyo daryeel bay u baahan yihiin ay xaq u leeyihiin intaa haddaad dayacdo dembi kuugu filan aad naar ku gasho marka waalidku keenan u qaadanin keliya iyaga caaq haddii lagu noqdo unbaa naar lagu galaa adigu haddaad caaq ku noqoto ilmahaaga naar baad ku geli ilmihii aad sida xun u beertayna hadhow adigii inuu ku cunaay wax dhici kara wey fakhashiina an yuriqahumaa duqyaanan wa kufran gaalnimo inuu ku gaarsiiyaa dhici karta inuu lafahaaga kuu dilaa dhici karta inuu adiga ku qaramsado oo ku diirtaa dhici karta ilmaha yar soomaadan arag haddaad eray xun dhowr jeer ku dhahdo isagii unbu kugu soo celin halkaa waxaad ka garatay wixii aad ku beertay midhihii buu kuu soo saaray intaad dacar beerto inaad malab goosato lama sugo intaad adigu dacar beerto waxaad arkaysaa odayaal iyo aabbayo iyo hooyooyin maantao dhan ilmahooda way caayayaan tuug baa tahay qurun baa tahay qashiin baa tahay isagiina hadhowle waa la beeray maxaa laga buuxiyo tuug baa tahay qurun baa tahay qashiin baa tahay dulliyahu baa ka buuxda hadhow muxuu isagii soo saaraayoo mantagayaa oo wax soo saarkiisiia tuug baa tahay qurun baa tahay waraa tuugyo adaa tuuga wey maalinka dambe adaa tuuga dee wuu dili markuu intaa maqlo maxaa u dili wax adugu ku beertay buu ku siiyey midhood beertay buu wax walba wixii lagu rido uu soo saaraa intaad dacar ku rirto malab lama goosto intaad qodax beertana moos goosan maysid haddaad qodaxdii quruca iyo adugu aad beerto hadhow inaad moos iyo midho iyo cad hiliba goosatay dee ha sugin ilmuhu waa mashruuca ugu qaalisanee aadamuhu ay sameeyaan waa qoyska waxa ugu qaalisanee dunidana dad buu soo saaraa haddaad xaqa ilaalin weyda cumar aan sheegay radi allahu canhu wuxuu ku yidhi cumarow xaqa aan waalidka ku leenahay annagu muxuu yihi wuxuu yidhi inuu aabbahaan ku leeyahay maxaa yidhi inuu hooyo fiicanna uu kaa dhalo magac fiicanna kuu bixiyo si fiicanna wax kuu baro si fiicanna kuu tarbiyeeyo waa yidhi wuxuu yidhi aabbahay intaa iima samayn wuxuu yidhi maxaa dhacay hooyaday tii naagaha magaalada jooga ugu xumayd buu iga dhalay buui waa ta naagaha ugu xun anigana magaca ugu xunna wuu ii bixiyey buui oo xarwalwaal buu ii bixiyey buui jucal alif si loo qoranay ma barin ninkaygaa weynaad aragto alif ba si loo qora ma aqaan weligiina eray fiican ima dhihin marka aniga fataatiir baan hay buui cumar ushii uu wiilka u haystay odaygii buu 3 ku jiiday wuxuu yidhi ilmuhu intaa idinku caaq ka dhigtaan oo waxun beerataan baa cumar u dhahaysaan buui maanta kadib hayeban cumar dhahaysaan buui adaa waxaan beertay buu ka gur marka ilmadee hooyadii markuu arkana dadka ay ugu liidato markuu magaciisa maqlana dadka ugu magac xun markuu barasho eegana keligii uu ka jaahilkayo waxba garanayn erayga dhegtiisu kaa maqashana cay xumaato uha maxaad ka sugtaa dacar intaad beerato adeer malabaan goosto ma shaqayso ilmuhu xuquuq bay waalidka ku leeyihiin waalidku xuquuqda ilmaha ilaa sharcigeenu ilmaha jeclaada aad uma dhaho waayo ilaahay baa ku abuuray dadka inay jeclaadaan jacaylkii xakameeyaa la yidhaahdaa iyo xuquuqdooda ilaaliya waxaa laynaga doonayaa waalidka waxaa laga rabaa ilmaha xuquuqdooda inay ilaaliyaan marka ay reer samaynayaan laga soo bilaabo hadday fursaddaa ku dhaaftay waa markii gogosha la joogay inta dhiman daba qabo hadday ku soo dhaaftay tacliimtoodii iyo tarbiyadoodii iyo ilaalintoodii iyo ducadoodii baa lagaa rabaa bal dadkii wanaagsanaa eeg iyagoo intaa dadaalaya bay habeen iyo maalin duca la garab socdaan
ilaahu ilmaha noo hagaaji duriyatan ayibatan saalixata ilaahu nagu arzaaq ilaahay ducada uu aqbala ducooyinka la aqbala ducaa ul waalid baa kamida intaad habaari lahayd ee balaayo kugu dhacday ku dhimo inkaari kugu dhacday intaad habaari lahayd ilaahu khayr ku si ilaahu ku soo hanuuni maadaha waalidku waxay radwa xanaaqo habaar bulada bay istaagaa ilmaha habaar bulada bay istaagaa hadduu yiraahdo wax uu yar qaatay ku go iimaanka Allah ku tirbi yiraahdaa inkaari kugu dhacday buu yiraahdaa balaayo ku qaaday buu yiraahdaa intaad saadhihi lahayd balaayo hadday qaada aakhir iyo maxaad ka faa'iido ilmaha adduunku waa lagu intifaacaa inaad ilmo leedahay waa nicmo inuu ku adeega waa nicmo haddaad barri waa yeesho inuu ku xambaaro ku qaado ku daryeelana waa nicmo aakhirana waa lagu intifaacaayo haddaad ka horeyso aad tarbiyo wanaagsan camal saalix u lahaana ajri baa kuu socda hadduu aakhira kaa darajo sareeyana isagoon waxba loo dhimin baa lagu dallacsiin oo darajadiisa kore lagu geyn aakhira darajana waa lagu dallacaa ajirna waa kuu socdaa hadduu suuba yahay hadduuba ku xasuusto ku soo duceeyana ajir labaad eh adduunyana waa lagu intifaacaa laakiin waxaa lagaa raba adiga waxaa weeye xaq baa lagugu leeyahay haddayba ilmihoodan adduunku intifaacinoo yaryar kaa dhintaanna hadday laba gaaraan kuwa kaaga dhintay nolol way kuu shafeecaan oo ilaahay aakhare intay ku qabsadaan bay yidhaahdaan sii dayn mayna ilaa dartaya loogu dembi dhaafo loo cafiyo oo janno loo geeyo ma sii daayaan haddayba aakharana ku halgamayaan oo janno inay ku geeyaan rabaan hadday duni kaaga dambeeyaanna ajir kaaga soconayo hadday kaa daraja sarreeyaanna aakhare lagu dallacsiin adduunkiina aad adeegsanayso haddabad waayeeshana ay ku daryeelayaan intaas bilaash kuma imane adiguna inaad daryeesho ood u dulqaadato ood u sabirtaa lagaga baahan yahay walidaalika haddiiba dadku soomaalidinu dhaqankii weli waan haysanaaye wiilashaa la jecel yahay gabdhahana culays baa loo arkaa walow hadda aynu ogaanay gabdhuhu inay ka nacfi badnaadeen wiilasha laakiin si gaaraa loogu dardaarmay dadka sidaasaho laba gabdhood qofka ilaahay intuu siiye tarbiyadooda wanaajiya baa nabigu wuxuu yidhi kaanataa lahu xijaaban min annaari aduu maxaa kaloo raadinaysaa wax ka weyn oo la raadiyo haddii naartiiba lagaaga xijaaba maxaa ka weyn loo raadiyaa adduunyada waad xamaalan dhibka ugu badan adduunka kale muxuu yahay waad rafaaday waad dhimatay laakiin meesha aan la dhimanin ee la noolaanayo weligeed soo aakhira maaha jannadii baad ku geli naarna xijaab bay kaaga noqon markaad xadiidka aragto ilaahu gabdho badan isii baa la yidhaahdaa baad dhihi halkanayba jannadii ka dhowaatay kuwanuun daryeel jannadiina dalaq dheh awlaadan aakhirana jannaa lagu galaa jannay sabab kuugu noqdaan adduunyadana sacaadiya liimaan laakiin waa goorma markaad xuquuqdooda ilaaliso rabbigooda aad barto waajibkooda aad ka soo baxda laakiin ogaada ragyow dadow haddaad dayacdaan ilmuhu ajir kastood samaysay dembi naar lagu gala waad samaysay kafaa bilmari iman an yudayica man yaquut anugu aan iska soconiyo intay tagoogaha ku jiri lahayeen tubaha ha yaalyaallaan sharciga maaha wixii awooddaada ka baxsan adoo dadaalaya waa gaal laakiin dan kama lihi waan iska dhali oo halkaasaan mafrashoogi oon qayili halkaasaan iska siyaasad baan ordi waan wareegi warba kama hayo wadaad baan noqonoo waan tabliiqaynoo meelahan iska wareegi warna kama hayo waajibkaa waa la dayacay waxaad qabanayso dhan naar kaa badbaadin maayo fadliga ilahina kaga badbaada waa gaal laakiin kafaa bilmari iman an yudayica man yaquutu baa kuu taalla ilaahay ha laga yaabo ilmaha la daryeelo xaqooda ha la ilaaliyo xaqii ilaahay waxaa xigay xaqii waalidka wasiyadanna xaqii ilmaha wey ilmaha laga dadaalo ilahay subxaana wa tacaala xaqaa gudashadiisa allah inoo fududeeyo kuwii daray daryeelana ilmahooda allah inaga dhigo ilmahana allah inoo wanaajiyo اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم ألهمنا رشدنا واعذنا من شرور أنفسنا اللهم آت نفوسنا تقواها اللهم زكيها أنت خير من زكاها ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأقم الصلاة الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله